Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magacaabay Gudiga Sooxulista Baarlamaanka labaad ee Maamulka Koonfur Galbeed. Gudigan oo ka kooban 10 xubnood ayaa noqon doona kuwa soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magacaabay gudi doorasho ee madax banaan ee soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed. warqad sumadeedu ay tahay eber 96 ujeedo magacaabid gudi farsamo madax banaan ee soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisa labaad ee magacaabida gudiga madax banaan markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo in la helo gudi farsamo madax banaan oo maareysa xulista xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya u magacaabay gudi farsamo soo xulista doorashada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xubnahaas oo kala ah Maxamed Kerow Maxamed Gudoomiye Nuurdin Ibrahim Aadan Gudoomiye ku-xigeen Aadan Maxamed Ali Xoghayn Mawlid Xasan Axmed xubin Jeelaani Maxamed Coof xubin فاطمة محمد أحمد حبن آمينو عمر محمد حبن عمر علي إساق حبن فارح شيخ محمد حبن عاشو إبراهيم علي حبن حير كان وحود قنقليا مركو أصيح مدحوينها دولة قولات كونفور قلب الصوماليا مدن عبد العزيز حسن محمد لفتقرين ونصيحي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gudigan ayaa gudagali doona fulinta hawlihii loo idmaday waxaana la filayaa inay yeelato Koonfur Galbeed xildhibaanada labaad ee baarlamaanka. Shafiic Cabdinaasir Maxamed, Shaacir SBS Muqdisho.